jilbaabka iyo culimadu u yeelaan ahkaam buu leeyahay ahkaam toban baa lagu sheegay ilaa 10 shay inuu jirka qariyo inuu isha raga soo jiidan uu fool xumaado inuu maro weyn dhulku jiidanaysa uu noqdo wama ila dalika ahkaam aynkaas uu leeyahay marooyinkaas noocaas marka gabadha muuminadu ay xidhato quruxdeeda ilaahay u joojinaya gabadhaas ugu ihfadillaha yahfadka bu nabi ilaahay markaad ilaalisid adu amarka ilaahay ilaali bu nabigu ku leeyahay adiga ilaahay baa ku ilaalin oo muxuu ku ilaalinaya waxaad haysataa ilaahay ku ilaalin cadowga ilaahay ka ilaalin xasadka ilaahay ka ilaalin ayna naaska ilaahay ka ilaalin sixirka ilaahay ka ilaalin fasaqadiyo fajarada ayaa ilaahay dhibtooda ilaahay ka ilaalin gabadha asturan ee xijaaban waad aragteeno waa muxtaramad hatta kuwa ciyaalka suuqa leena dhalinyarada dariiqa fadhiisata ayaana isha ku soo taagan oo gabadha ixtiraamaysa waxa lagu ixtiraamaya laana gabadha diin baa ka muuqata maadaama ilaahay aad ka baqaysid ilaahay dadka qulubtoodana haybad buu gelin haybad baa ilaahay ugu tuuriyay waa laga haybaysan waa lagu ixtiraami bal waa lagu adeegi waa lagu khidmayni inta gabadhu dharka ay sidatana bay culimadu leeyihiin cibaada loo qoray waa cibaado kaanaha inay salaad iyo soon iyo cibaado ku jirto kale la mid ah limaada xijaab gabadhu dharka jilbaabka qaadatay aqalkeedii bay ka baxdo dukaanka ama suuqa muraad u yeelatay way ka soo adeeganaysaa waa cibaado ku jirta bay culimadu ku leeyihiin limaada dharkan ay xiran tahay waa amar ilaahay maadaama amar ilaahay ay nolosheeda ku fulinayso inta ay socoto dhan waxa loo qorayaa maaragtaan ajar iyo xasanaad baa loo qorayaa وأحكامت خاصة وأحوانك وحكالو خاص إنك إني ورقوا أيني لقب وقرنا في بيوتكن إن قبل نقطة قبل قريجوغا قولوا لي بس كفدنا حفصة بنت السيرين قبل صالحة ومحدثة بيحين عالم من علماء الإسلام وإلا دلاتي waxa kutubta ku qoran 30 sanadood baa la yiraahdaa masalladay ku dul tukanaysa kama kicin baa la yiraahdaa inagana ma sha Allah zamankeena suuqa Hargeysa dad u dhaadhacdo iyo magaalooyinka suuqa magaalada Djibouti ku yaalay waxa socda boqolkii 80 waa dumar baa dariiqa socda jamaacadda Eeshiyaanka dacwada u yimaadeen dalkeena ku soo baxa ayaa bari waxay nagu yiraahdeen waniyo dumarku dhulkiina joogan way walwaalan yihiin markaasaan bay way fiyoyin waa marwooyin maxaa dariiqa hada waray maxay la wareegayaan markaasaan waniyo gabdhaha naga caayay may bay ku leeyihiin may bari dambaan markaa dhulkooda aan safar ku tagayo magaalo waxaan tagay 22 milyan oo qof ay ku nooshahay Dhaka magaalada caasimadda Bangladesh Dhaka 22 milyan oo qof ku nool gudaheega ilaa 6 milyan oo soo shaqo tagtaa ka ruuxda hal gabadh oo dariiq fadhida waan ka arki weynay hadday socotana ama abaheed baa gacanta haya ama walaalkeed bay la socotaa ama ninkeedii bay la socotaa ama inankeedii baa hor socda zaylada xoolaha tagnay rag baa ka iibinaya suuqa khudaarta lagu iibiyaa tagnay rag baa iibinaya hada xawaashka rag baa iibinaya dumar ma iibinayaan u ka soo galaya ma kuleeyeen ay soo doonayaan barigi hadalka ninku ugu lahaa baan xasuusto lahaa warniyo dumarka dhulkiina jooga may walwaalan yihiin ayaan xasuustoonay warninkii waxa uu sheegay ilaa waa runtii kuweegu ma dhamaada marka raaliga hada caroonine inagu kuwii fiicnaa aqalada fadhiyay baa tihiin gabdhaheena yar yarna aqalada fadhiisiya oo gabadhu min inta 9 jir ay gaarin oo la dirdiran karaa bay culimadu leeyihiin oo dibadda waa loo dirdiran karaa laakiin 9 jir gabadhu haday gaadho qalkeena ka baxda ma hadee toole waa in aqalka dhex fadhido حتى الدين هذا برانيسو إني يقولي كذا كبرتها أبو خير بدن قبل بني بيجي نوتي مدوتر يا رسول الله صلاة هذه قداش هذين كنت كذون مسكيت يا كقولت كذا جعلها كورن مرقام النبي يقول هو خير لكن صلاة المسكيت يجي كنت كنيس ونبى أنا قداش صيدا هاد كنت كنيس وحكى خير بدن صلاة أقل كاجا حديث هاد كنت كنيس كاجا خير بدن اللي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هواك يرجو ما كان حنين
masaajidka nabiga qaybta horena ragga iska lahaa qaybta dhaxana dhalinyarada ku tukanaysa caruurta yar yar qaybta dambana markaa waxa ku tukanaya maaragtaan haweenka oo nabigu wuxuu yiri safafka ragga safka ugu khayr badanna waa ka hore buu nabigu yiri kooga ugu shar badanna waa ka dambe safka ragga ugu dambeeya safafka ragga ugu shar badan maxaa loo yiri laana xaqi ubadka iyo xaqi dumarku xiga dumarku nabigu ka hadlo wuxuu yiri safafka haweenkana ka ugu soo horeeya ugu shar badan ka ugu dambeeyana ugu khayr badan buu nabigu yiri kullama gabadhu ay ragga ka dheeraato ay khayr ku sugan tahay kullama ninku uu dumarka ka dheeraadana ayuu isaguna khayr ku sugan yahay ugu